madimaatu u sii dhagaye sida waxay cadaynaysaa inay inaga go'an tahay inaynu la shaqayno dawladdeena iyo dadkeena iyo degmeena iyo maayirkeena soo maaha maamulka gobolka iyo degmada la shaqeeyo soo maaha waxaynu muujinaynaa inaynu Soomaaliland iyo madaxweynaheenu go'aanka uga qaatay wada hadalka inaynu taageerno soo maaha madaxweynaheenu garab taaganahay soo maaha arrinta maanta halka aynu taaganahay haddii aynu reer Soomaaliland waxa weeye inaynu muujino qarannimadeena boorama waa aasaaska Soomaaliland dadweynaha reer boorame ee isa soo abaabulay inay isu taagaan ama taageeraan madaxweynahooda jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi khudbad sanadeedkii uu ka jeediyey labada gole u jeediyey hadalladii dhammaantood duuduub bay ku qaateen duuduub bay ku taageereen waxa noo farxad lah in aanu aragno dadweynihii ku noolaa degmada Boorame iyo guud ahaan gobolka Awdal sida quruxda badan leh iyadoo waliba maalin cadceed ay tahay u soo baxeen ay waliba u doonayeen inay taageeraan go'aankii iyo mowqifkii uu qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku aadana imaatinka farmaajo maanta waxaanu halkan ka taageeraynaa haddaannu nahay shacbi weynaha gobolka Awdal iyo dhammaan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland khudbad sanadeedkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyey labada gole baarlamaan oo aanu si buuxda u taageersannahay haddaannu nahay shacbi weynaha gobolka Awdal taageerada ay u hayaan go'aanka ka soo baxay xukuumadda gaar ahaan madaxweynaha iyo qadiyadda Soomaaliland inay muujiyaan dadweynaha reer Boorama ama gobolka Awdal waxay mar kasta yihiin dad lafdhabar u ah oo meeshii ay ku abuurantay ee lagu aasaasay dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland shirkii ugu weynaa lagu qabtay madaxdu waqtiga ay talinaysay maaha sida adduunyada dimuqraadiga madaxweyne la doortay shacabkiisa go'aan kale marka waanu dhaafnay waqtigii dadka la magacaabay ay talinayeen waxaan ka horjeednaa cid kasta oo doonaysa inay dib inoo celiso inaad qaradayso waan ka horjeednaa sidaa darteed waxaan ku salaamayaa halkan oon aad ugu taageeraynaa khudbaddii taariikhda ahayd ee uu ka jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aad baan u taageersannahay haddaannu nahay duqaydii iyo salaadiintii iyo cuqaashii gobollada galbeedka Soomaaliland waxaannu halkan taageero buuxda oo mugle aan ku taageerannaa khudbaddii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka jeediyey labada gole waxaannu taageersannahay qodobadii ku jiray oo weliba gaar ahaan qodobkii furidda xisbiyada iyo ururada iyo go'aankii ahaa in aan madaxweynaha Soomaaliya farmaajo aanu booqasho ku iman karin magaalada Hargeysa aad iyo aad baan u taageersannahay inaynu taageerno madaxweynaheenna shirkii muxuu ahaa uu ku tagay Addis Ababa ee Afrika iyo khudbaddii uu ka hoos jeediyey labada gole waannu taageersannahay waxa weeye dawladdan Soomaaliland waa tii Boorama lagu dhisay waa taan inagu dhisnay waa taan halkan lagaga kicin sadan bay jirtaa way raamaysatay wax maanta looga baqo oo cadow ah leenahay ka cabsoonaynaa ma jiro Soomaaliland ugu noqonnaa halka waxaynu isugu nimidnay kullay khudbaddii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyey Hargeysa caasimadda waddanka taageerayna siinaan isugu nimidnay halkan waxaan u sheegayaa maanta dawladda Soomaaliland muqaddis tahay oo ina u baahnayn qaqrashaad kale indiraafkana ilaahay baa haya qacanta bay ku jirtaa way israacdo Afrika ayay ugu sareysaa taageeridda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici iyo dhammaan xukuumadda Soomaaliland waxaynu ku taageeraynaa madaxweynaha go'aankii caddaa uu ka qaatay imaatinkii madaxweynaha Soomaaliya
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد إلهي با مهدله حمرتا عبريسا عدكيا جيركا دميسي dadka maanta cisiga jooga mar ha loo celiyo miyayna ceeb xunahayn waa ceeb weeye